qisadaasi waxay ahayd wiil yar oo da'diisu 10 sano uu jiro oo waddanka Sacuudiga u dhashay magaalada Riyaad ku dhashay haddana jooga magaalada Madiina Masjidul Quba ayaa imtixaan yar looga qaadayay وفعلا نينكي كقاديين وكحشوده وحو يري كان مفروض وحا هاول ادو ان ادغا قادو لكن ان waxaan rabaa kaliya wax ku weydiiyo adaas iga haboon in adaga qaado wiilku waa 10 jir waa in dhalaya sidaas uu ku dhashay in dhala'aanta quraankana waa xaafid kaliya ma aha dhowr qiro yaqaana صدح قرأ تقريبا بوهذا الشيء إنه يقان وحا انت وصي دير كتبت علم القراءاتنا إلا صدح كتاب حفظ السيئة وإجازة وهايستا وحا لويديي ونكا سكاقا هذا القرآن كمال ألا ماشا تربطو يويدينا يا وحا ويدينا يا وكال الرقم الآية والصورة آيات كسته لمبر كذا iyo suurada lambarkeeda iyo page-ka wajiga ay ku jirto maxagu ka sii jeedaa mise xagga may u dambaysaa ma dhaxbay ku jirtaan uu sheegaya su'aal muhiim ah buu weydiiyay waa su'aasha aad ila cajab badan runtii aadna u muhiimka ah wuxuu ku yiri maxaa rabtaa hadda inaad noqoto wiil 10 jir ah oo indhool ah alhimma alcaaliya waa wax muhiim ah inuu qofku meel sare ka fikiro wuxuu yiri waxaan rabaa inaan noqdo imaamka xaramayn imaamul xaramayn baan noqdaa ayaan rabaa inaan noqdo oon aimada xaramka aan mid aan noqdo cilmigana aan bartoon qof caalima noqdo xaqiiqatan markuu hadalka wiilku dhahayay waxa igu soo dhacday 100% insha Allah ta'ala inuu noqon doono aimada xaramka caalimna waxa igu soo dhacday ibn Baz inuu indhool ahaa sheekha hadda sheekh Abdul Aziz sawna maaragtay muftiga Sacuudigana uu sawna uu yahay indhool marka inay u badan tahayba sifaad badan markaad fiiriso cilmigiisa waxa ka daran wiilku inta kale waxa igu cajab badnayd carabta dadka carabta ah waxaan moodaynaa inay naxwada iyo carabiga wada yaqaanaan يعني النحوذة عربت النحوذ وواح برشو بعنا وإحنا وواح لسانك وصحه أو قفكو سليقهم بسجى صور دشاي وكوه الله ضدنا إن بدن أو كم من اللحن بكوه الله يو عرب مركز الشيخ سؤاله ويديني أيا وحو خلدي أري ويديني سؤال شيء سن نحوها خلدن بو ويدي لكن ويل كيف صحة وسي صحة يسوي جواب هذا الكيس لن وحد مودا مركي سو انت اللي بويا عالم وتبنجر ويا لكن وحو كدري او كلا ويلكي وويلكا اندولكا اي قرانك سدا كبرتي معلم با مركي هore ilaa ibaray buu todobajus amal kadibna hooyada iyo aabahay ayaa igula dadaalo inta kale ee dhameystiray kadibna waxa la keenay xaramka la keenay halkaas uu ku galay muassasaadka tacliimiga ee taxfiidka buu kamid noqday wuxuu yiri quraanku wuxuu u baahan yahay al-juhd wal-ijtihaad yani wax iskaga soo ka dhacaya ma waa wax dadaal u baahan ikhwaani ilaahi subhanahu wa ta'ala kalaamka ilaahi waana muyassar ilaahi baa ku sheegay marna inuu thaqiil yahay oo culus yahay marna inuu yahay mid fudud inuu yahay marka insha Allah ta'ala in aan himada aan qaadno بقوة القرآن إن شاء الله تعالى عن كقبنا أو هدو وقت كرافي ونوضع رافي وقت دير وقت جاء أيضا كفكرين أيضا فيرينين أنت كدم بيساعد فيرس تدك هذا الله يابه الله ياب كلا تضباط سنة قف جرو القرآن كهذا حفظناي سيدات سنة قف جرو القرآن كحفظناي قف يسوي أجرة تضباط سيدات جامعات كان يدتك دكتان ويكبحان من قرآن كبرنا ونكبحنا يسجن تضباطنا ذو جرا جامعة دول هذه لكن قرآن كما سوفر الستة والمعلمين أنت تمادد هذا دونا مارت ألف لا قبل الله